boqol sano midkii jiray wuxuu aga buux sameeyay garmadooba aan baqin dhalintooy isbiirso عليكم ورحمة الله وبركاته أصحابته ميرو بيدون دون ذكر جوكتانا فيديو نما ونكسن أما لنما ونكسن حلو اللي باقي وقت والبويدين تاكل صلوا هذا برامج كني أنا ما حكيت تدعم كفر قنجرني أفرادك ساعة فرتي زدي ساعة مراجعنا وهودا وكلنا وحنا يصنف سنة أركتي دين على التكنولوجيا بلوك تشين كريبتو كارنسي حوران تدا يجوي دا كالدول اسقبقبسي أيام مدة سعودية جودها كريبتو inkastoo isqabqabsigii qaybtiisii ugu dambeysay la soo istaagay ayaa haddana waxaanu dareemi karaynaa ftx.com iyo ftx.us iyo alameda saddexdooda oo iswada wataba inay xariisteen qaybta marka ay noqoto shirkad mufalistay ama kacday qodobka 11aad kaasoo dad aad u fara badan hantidoodii mustaqbalka ay isdhahayeen waxay idiin noqoto galaysa السؤال adag in dib dambe ay u arkaan taas waxay kaliftay in suuqyo fara badan oo dhinaca gudaha kiribta ah coinan kala duwan iyo suuqyo la xiriira dhinaca cryptocurrency ee istogeeda dunida lagu tareergareeyo intuba ay hoos u soo dhacaan hoos u soo dhaco oo qurankuma ay keen shirkadahaas kabriyaad fara badan ayaana jiro oo ay ka mid tahay Coinbase kumariya dhinaca mining sameeyo iyagoo naftigooda dhinaca Nasdaq Stock Exchange lagu tareergareeyo sidaas ayadoo tahay xaalkuna kala orod iyo buuq uu gudaha kiribta ka jira ayaa haddana dadka haysta bitcoin-ka markay noqoto shakhsi ahaan maliba maalinta ka dambaysa xerka isku soo shareerayaan garaafyo cusub ayaana tilmaamaya in dad aad u fara badan waagu ugu bariyay in haddaysan coinankoodu iyaga haysan furahooda aysan iyagu lahayn ama aysan ka mas-uul ahaynoo gabagabada la dhahayo waxaa la xaraystay bankruptcy kalifi karta in la yiraahdo hadhow waxa waaye process ay kala lahaan doonaan qolada ay ka lacag badneed ayaana percentage wax soo celinta 10 sano kadib laga yaabaa in ay gacanta ku dhigaan Turkiga ayaa Ruushka iska kaashanaya la dagaalanka dhinaca markay noqoto dunida internetka dambiyada laga geysto iyo dambiyada lagu dhex geysto lacagaha cryptocurrency-ga iyo lacagaha digitalka intaba like subscribe share adiga bani ma ka galna anaga wax badan ay naga saacidi karaysaa in dad fara badan oo dunida ku kala nool aanu gaarno geel hadii jirnay ilma qaada meel dheer ma jira laakiin ma ka kaabkeeni dirishada ayuu ka baxo trillion dhuminay billion sagaal ahna dhuminay hadda 895 billion oo dollarka Mareykanka ay kiribta maraysa bitcoin mar kale eriyadii 16 ayuu soo noqday magaali doona darbiga 14 ilaa iyo 15 in dib uu ugu sii socdo waa macquul kambaniyo fara badan oo culayska dhinaca faqrinimo ay xaraysatay saddexdan kambaniyo dabada isku wata waxay ka dhifi karayaan gaar ahaan kambaniga Alameda oo iminka la soo tilmaamayo in ku dhawaad 10 bilyan ilaa iyo 50 bilyan oo dollarka Mareykanka ay u kala qaaday darajada dadka lacagaha hantidoodu meeshan ay ku dhumayaan taasoo buuqeedu aad u cuslaan doono dad aad u fara badan salka uu la geli doono kan aad u fara badan laga yaabay xaraashkoodu mar kale dib in gudaha kiribta dad fara badan ay uga arkaan laakiin fursada ay dadka qaar traderska u noqon karaysa daqada ka hor muuqaalkan intaan idin la soo wadaagin waxaana barteena Twitter-ka ee Crypto Somali Media idin kula soo wadaagnay xogtii ay shabakada dhinaca dhaqaalaha ka hadashay Bloomberg ay dabacday ee bal Sam ninkan la yiraahdo oo kisgaanjiga FTX iskala hay isla markaana asiga iyo saaxiibadiisna dhinaca kale Alameda laga dhihi jiray isaga iyo dhalinyaro isfaantay oo ahayd kuwa traders balse markii dambe tradersnimadii u dheeraatay inay xareystaan ama ay noqdaan exchange iyo idaan wal kombiyuutarada waa dul fadhinaa server ma dhinaca ka soo dhigno FTX loo bixiyo shirkadii sidaas ay u ahayd waxna u tareergareynayeen asxaabtu gabagabadii waxay noqotay in xaalku uu ku adkaado hore u socodkana ay culays noqoto siyaasad iyo hawl kale oo kiribta culayskeeda siyaasadeed ama philosophy ahaanba markay noqoto ay adag tahay in kiribto ay la dhaqantane gacmaha uu la sii galay taas waxay kaliftay badu waxa xun dirishada ay ka soo turta ama qurme oo ma haysato quranka badu banaanka ayuu soo dhigtaa maalmaha kamida bitcoin nidaamkan capitalism-ka la yiraahdo lama noolaa karo muddo 3 sano gudahooda kii isku dayay in capitalism uu dhax keeno kiribtane
saddex sano kadib isaga ayaa banaanka taagan xoolihiisina laga yaabo in suuqa ay ku dhumaan waxaan dareemi karaynaa dagaal adag inuu ka jiray qaybtaas taasoo kaliftay in FTX US iyo FTX.com labaduba alameeda ku sii dar fractional reserve currency system in crypto ay la dhex joogeen kaasna uu noqon karaynin mid stable ku dhex nidaamkan si aan ku siiye ilaa wax kale oo ka soo dhex bixi karo aysan jiraynin taas waxay kaliftay toddobaadyo ka hor in Sam uu maalgashadayaal aad u fara badan oo FTX uu ku wargeliyay in lacag loo baahan yahay taasna waxay kaliftay inay suurtagali weyso iyadoo taasi ay jirto ayaa haddana waxaa dhacday in isaga Yazizi dagaalkoodu banaan ka yimaado uu yiraahdo oday hebelow koynankaade waa kuwanaha iga qabso laakiin waxay taasi kaliftay in arrintu ay sii fogaato dad ayaa iminka waxay taagan yihiin FTX waxa ay la tagtay hanti Ontario company dhinaca markay noqoto macallimiinta wadanka Canada ka shaqeeya lacag oo ahayd in ay u noqoto mustaqbalka haddii ay galaan waayeelnimo ama da'da lacagtaasi ay dadkaasi biishaan laakiin macallimiinta xoolahoodii dirishada hadday ka baxeen BlackRock iyo qolo kale aad u fara badan iyo DCG company kale oo la yiraahdo iyo Genesis iyo BlockFi intuba waxaanu dareemi karaynaa in dhaawacyada dadka kale ee u geystay dib haddana mar kale crypto ay uga soo fatahayaan mawjadahoodu waxaana dhinaca dunida DeFi-ga ama dunida dhinaca ribada marka ay noqotone salka isku wada haya gabagabadoodu ribo dagaalkii nabiga alayhi salaatu wasalaam iyo ilaah ballantiisii ahayd ayadoo ay taagan tahay marna ma laga yaabin inay sii dhisnaadaan taas waxay kalifay marka shakhsiyadiisa Sam ma ka xoroobi doonaa in xabsi uu ka badbaado shaqaalihii exchange-ga naftigeeda FTX ayuu dambiyo iyaga naftigoodu ka dhaxgalay heer waxay gaareen sheekadu ay madhab noqoto oo la yiraahdo niyahow madhabta company-ga FTX yaala meeda ma la shaqeyn karto marka boorka banaanka marka shaqada la soo galayo fiiri aad arkaya saakay in lagu dhaho naadiga niyo lama jaan qaadi kartid waxba soo gelin hore bustaad u sii qaado dad aad u fara badan ayaana arrintaasi buuq ka keenay warbixin dhalinyaro ka mid dadkii ka shaqeynaya ayaana idila soo wadaagnay xog ay daabaceen bartana dhinaca Twitter-ka dayda nagala socotaan Crypto Somali Media taas markaa kasoo tagna waxaan dareemi karaynaa hadda Bancroft ayaa xareysteen qodobka 11aad kaasoo isaga naftigiisu hirgelintiisa iyo ansixintiisa gudaha wadanka Mareykanka markay noqoto gudaha lacagahan cryptocurrency-ga aan batata sharci ka ahayn laakiin qabashadii process-ku waa iska macquul laakiin gudaha crypto dhaxdeeda iyo dowladda Mareykanku inay xareyso faqrinimo dhinaca markay noqoto qodobkan 11aad wili sharciyadiisa ayaan dhamaystirnayn sharci dejiyaashuna wili wax guula kalama aysan soo noqon marka laga bilaabo dhacdadii MTGOG ilaa iyo iminka Japan ayaa la daala dhacaysa nidaam caynkii ayaa arrintan u keeni karaysa tan waa tan kalifta marka in bishii aanu soo dhaafnay wadankan Cyprus la yiraahdo isaguna ka mid ah wadamadan European-ka in uu FTX ka codsado inay batatan bashaqada joojiyaan inta aysan baxarkan gelin laakiin dhaga adeeg waxa uu kalifay in mawjadu ay sidan u dilaacdo kamariga Tether ayaa waxa uu sheegay isaguna inkastoo ay saaxiibo ahaayeen asxaabtan qaybta lameeda in banaanka ay ka joogaan doontaan oo deynna aysan siinayn haddii hay'adaha sharciyada wadanka Mareykanku ay soo codsadaan in address gaar ah oo FTX la xiriira maalameedana aysan wax u soo issue gareynin amaba lacagta ay u ahaynayaan haddii dawladdu tiraado nimankaas noo qabta taasoo kaliftay in Bahamas oo iyadoo jasiirada dhinaca markay noqoto dadkan asxaabul cryptada ay luuqaas ku cararaan taajirintuba sharciyad ay ka soo saarto ay tiraado bankiyada dhinacan la xiriira ee Bahamas ee Tether soo gala ee FTX iyo hala joojiyo lacag ka baxaya ama soo galaya taasoo iyadana kaliftay in si degdeg ah ninkan process-kan uu xareystay rajadii ugu dambeysana ahayd odagu ma heli kara Bahamas inuu lacag ka soo saaro ama deyn kale ba ka keenay laakiin waxay noqotay in albaabada la isugu dhufto hadda duma dhaclaynta dib ay u soo noqonay traderskuna Corio hoos ayay coinka FTT Solana iyo kuwa kale aad u fara badan oo la ciyaari karayaan mawjaduna waa ay sii socon karaysaa waxaana soo bixi karaya xogaa aad u fara badan oo dhinacyo kala duwanba arrintaasi ay gali doontaa ayaan ka wada mar walba haddaydu nagala socotaan qaybta dhinaca Twitter-ka waan idinka soo update gareyn karaynaa 24 saac intii nasiibka uu noo saamaxo in xogaha aan idinla soo wadaagno
xog ayaa tilmaamaysay in uu Zizi dhahay waxay u dhigantaa Lehman Brothers xaalkoodii labadii wiil mataana ahay ee dhaqaalihii dunida 2008 la degay laakiin waa ay ka duwan tahay xaqiiqdii mana u dhawaa sababtoo ah bailout ayay dadkaasi heleen oo gabagabadeeda noqonaysa in lacag dawladdu soo daabacdo laakiin kiribta dawladdu diyaaru maaha bani inay ka soo daabacdo inay bani ka qaado oo qoramahan marka waa laba mawjadad oo aad u kala fog nidaam capitalism lagu badbaadinayo iyo kiribto ayadaba ay capitalism ka dhex jirin hadda dhex keentana subaxa dambe ay noqonayso qodobkan dacwadiisu ay jirto oo ay adag tahay in sharciyad ay ka soo baxdo aad xarayso kadibna lagu yiraahdo dhowr iyo 10 sano kadib waxa waaye 4 qof iyo 5 qof ayaa percentage-ka loo kala qaado waana tan kaliftay imika in alameeda xariifnimadooda aan ku dareemi karayna inay dhahaan waxaanu qeexayna in darajooyin aan kala siino investorskeena group ilaa iyo 10 bilyan oo dollarka Mareykanka ah nagu leh group 50 bilyan oo dollarka Mareykanka nagu leh oo gaar ah groupyadaasi waxay noqonayaan groupka 10 in waxba ay soo gaari doonaan bilyan ilaa groupkan 50 bilyan la yiraahdo percentage caynka ayaad leedihiin halkii dollar 3 senti ku dhawaad wax aad ka qaadan karayso mustaqbalka hadiiba ay guul noqoto taas oo iyadana hawl kale oo aad u fog sharciyadeeda iyo nidaamyadeeduna ay adag yihiin Turkiga iyo waxa lagu soo waramayaa in wadankan Russia inay iska kaashanayaan xaaladaha dhinaca dunida la dhaqanka internetka iyo dambiyada laga geysto taasi oo soo dhaweynayso labada wadan dhinaca sharciyada lacagaha cryptocurrency iyo lacagaha digitalka Turkiga ayaa dhaho Russia ayaa waxa uu raadinayaa inuu isticmaalo lacagaha nidaamkan rubiga inuu ka dhigo lacag digital taas oo keenaysa in suuqa dhinaca Turkiga arrimahaasi iskala sii shaqeystaan waxay nagala socotaan Crypto Somali Media like subscribe share adiga bari markaa gidna anaga wax badan ay naga saamixi karaysaa in dad fara badan oo Soomaaliya aanu gaarno suuqa oo duma dhacleynaya fursadaha fara badan dhinaca trade-ka hadaad la keeni karto wali way ka jiraan oo coinankan koryo hoos u dhaqdhaqaaqoodu uu socdane wad la ciyaari karaysaa Cardano oo 600 milyan oo dollar weelisku ay xaraashayeen waxaanu dareemika andaho 600 milyan oo coin-ka ayaan ka wadano dollar 600 oo milyan oo coin-ka Cardano ayaa xaraash ka jira dhinaca weeliska laakiin waxaan dareemi karaynaa haddana community-ga reer crypto ka ahaan asxaabta qabiilka reer Cardano inay taagan yihiin annaga waxaasi nama quseeyaan wili coin-ka aanu doonayna waan arki doonaa xaalku sidoo noqdo kulliba xoog fara badan ayaa ka soo baxaya arrintan markay noqoto FTX iyo xaaladaheeda kala duwan labadeeda dhinacba labada exchange hadii ahaleed ftx.us iyo ftx.com Alameda Group Research Team koodi saddexduba DCG iyo iyaga naftigooda NYDG ayaa iyaga naftigooda waxa laga soo sheegayaa warbixin dhinaca mining-ka laakiin waxaan isleeyahay xogaa arrimahaasi hoos u dhac ay yeelan karayaan laakiin nidaamyada pyramid scheme-ka xogaa crypto marka qaar isma hay karaan oo inuu bixi karayaan waxaana macquul ah in xaalado kale oo kambaniyo kale ay salka la sii gasho oo aan la soconayna kulliba waxa suuqa dhaqdhaqaajinaya ama wax ka badbedelayana kuwaas ayaa hormuud imika oo ah waana la keeni kartaa haddii fursado dhinaca trade-ka aad isdhihi karayso ilaa iyo 15 haddii uu soo gaaro bal toddobaadkan ma la ciyaari karaynaho ilaa iyo toddobaadka waxay noqon karaysaa tradersku kor iyo hoos suuqada inay u kala qaadaan una baahan farsamo aad u fara badan in aan la ciyaarto haddii aadan la ciyaari karin xoogaa banaanka ka yara istaag duma dhaclaynta dagaalada dhinaca traderska ee shorty iyo longiga u kala galaya coinanaad u kala duwan FTT-na banaanka kamar waxa uu socdaa oo qora zarfarkiina hawada lagu dhufto kabriyaad u fara badan oo dhinaca F1 baabuurtan orodka ahne waxa ay joojiyeen partnerkooda maadaama dukaanka albaabka la isugu laabo meesha lagu kala tagayo waan arki doonaa wixii ka soo kordha waxaan dareemi karaynaa Bitcoin wili 16,900 darbigeedii in uu haysto inkastoo wili market cap-keenu lacag badan ay baxayso oo hadda 895 bilyan oo dollarka Mareykanka ayuu muuqaalku noogu bilowday inta uu socdo muuqaalkan oo qora haddana waxaanu maraynaa 893 bilyan oo dollarka Mareykanka labiyo xogaa baxdo waxaana macquula ilaa iyo in aan dib oo imaan karayno 860 ilaa 874 saac soo socdo duma dhacleyn aad u far badan aanu la kulmi karayno meeshan waa hawd kuna ma wanaagsan in lagu fogaado saaxiibkiisidkooda dhahayo asxaabtada la wadaag muuqaalka aragtida qaybta hoos noogu raab barta Twitter-ka ee Crypto Somali Media aan ku kulanno xogaha degdega ah si aanu isula wadaagno sidaas iyo nabadgelyo noo kurateriyo amana Allah hawdka yaan lagu fogan boqol sano midkii jiray
buuxsha aga buux sameeyey garmadooba aan baqin dhalintooy isbiirso ballanteenu ballanteenu